dhahayo sababtoo daarood markii la dhahayo durbaan kale la garaacaya markaas inay gaarto ma rabo xasan kumada ku filan xasan daarood laguma yeerayo xasan kumada ku filan awood ciidan in lagu maqoonan karaa axmedow ha ka yaabin waa calaantaas soo tuma ka soo baxeen waka adoo awood ciidan mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale midna lagu maqoonin karo waka midna lagu maqoonin karo maxaad daliilsanaysaa waxaan daliilsanayaa horta awood ciidan cid ka ciidan badan ma laha ciidanku waa mid hubaysan iyo mid aan hubaysnayn ninkaan waa nin laandheera ya ninkan waa nin laandheera ciidanka hadda waxaa lagu qiyaasaa jubbaland ilaa 50,000 60,000 lagu qiyaasaa hadduu firimbi yeersiiyo 100,000 jigjigay ka imaan 50,000 gaarsay ka imaan jubbalandna degmooyinkooda waa laga wada imaan waxay isku imaanaysaa ilaa 500 600 1 milyan oo ciidan imaan ma fahamtay oo iyaga iswadaya xoolahin waa la keeni geeli waa la keeni lo'di waa la keeni arigi waa la keeni kharash uma baahno dhaqaale uma baahno hubna waa la hayaa iyo rasaasiisay marka ciidanka haddii firimbi la yeersiiyo aan waxaas leeyahay xamar bay qaban karaanba xamar bay qaban karaan uma baahnaba jubbaland keliya soomaaliya dhan bay qaban karaan xoreyn karaanba dad asal u ah oo waxaa samayn karan way yihiin ila dadka moogtahay waxaa la fiiriyaa adaartooda iyo taariikhdooda la fiiriyaa dad ay ka surtoodo ninka gaal cad iyo gaal madow nin walba la dagaalamayay oo jilbaha dhulka ugu dhuftay oo intaas waday uma daahaya abkii dowladda noolma soo daahaya uma daahayo laakiin waxay ahayd inaan laisku raacin dulmiga iskuma raacan in dad la dulmiyo dad isku raaca maaha marka taasaa laga yaabaa in la yidhaahdo muxuu laakiin maanta soomaaliya cid midaysa waa loo baahan yahay dulmi maaha maanta soomaaliya cid midaysa oo soomaali sharafteeda karaamadeeda soo celiso waa loo baahan yahay